maanta saraakiil baa timi doolow Soomaaliya dadka kula hadleen meeshaas ogaashay u yeereen amarayna bixiyeen ku aadeen ciidamada dawladda oo xerada UK degan iyo madaxda dawladda halkaas joogta khaasatan wasiir Cabdirashiid waqti bay qabteen 3 bariya meesha waqtiga ku qaban hayaan joogaan waa doolow Soomaaliya meesha ay leeyihiin laga baxana waa buulaxaw waddan Itoobiya ma arintaas marka waxaan arkaa waa arin dirsinimada iyo deegaanka wax u dhimayso weey waxa kale oo ognahay Jubaland waxa uu xuduudka la leeyahay Itoobiya waxa weeye gobolka Gedo dadka reegadana wax dhibaya wax olah iyo dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya oo qabtamay shirarka hadda Itoobiya lagu galo ama Muqdisho lagu galo oo dawladuhu ay ka wada hadlaan waana la ka khayr sheegay waxaana la yiraahdaa wada hadal fiican baa socdo heshiis baa dhow xaasana la yiraahdaa kabtana waxay doontay sameysay iyo saraakiisheedu arintaas marka waxaan rabaa inaan sheego arin hadda hadii Axmed Madow lagu taageerayo Axmed Madow wax taraysa ma shacabkan gobolka Gadana oo idinka xuduudkeeda la leh Jubaland ka wada istaqaaniin ma jirto saan filahayo ma rabaan Axmed Madow mana lagu khasbi karo annaguna ma rabna dagaal Itoobiya rabsho Itoobiya gardarana ma yeelayno aan qabaa ninka hadlay 3 bari baa yaan qabanayna inuu halkaas uga tago arintaas inayna sax ahayn waa war la iska yiri war Soomaalidu aqbalaysa shacabka Soomaaliyeed shacabka Gadana ma aqbalayaan annagoo maamulku waxana ma aqbalayna warkaas wadanka anaga ma rabnayna gumaysi ku dareeno asaga in daqiiqada iyo saacado nolol ku dhaxqabtana ma rabno mana doonayno mana yeeli doona dadka Soomaaliyeedna ma yeelayaan arintaas marka waxaan qabaa siyaasiyiin badan oo waxaan arkayay markay hadlayaan oo dawladaha dariska ka hadlayaan yiraahdo dawladaha walaalaha nahay ana waxaan hubaa inaan darisnahay walaalnimadaas ma aqaan meel aan isaga soo dhaxno laakiin abtirka waa laga badiyaa laakiin waxaan hubaa inaan darisnahay waxaan rabaa darsinimada in la dhowro cadow badan oo